waa mar kale iyo barnaamijkeena tala dhakhtar oo aynu ku soo qaadan doono xanuunka macaanka. haddii aad ku cusub tahay channelka ka mid noqo asxaabta channelka lana wadaag barnaamijyada caafimaad ee aan soo gelin. cudurka macaanka ama sonkorowgu waa cudur leh sababo kala duwan. dhiigooda ku badan tahay sonkorta ama sugarka ama glucose ay ku badan tahay. xaaladdan waxaa loo yaqaanaa hyperglycemia. cudurka macaanku waxa uu ka iman karaa in uusan jirku helin insulin hormone ku filan oo loo yaqaano insulin insufficiency, iyo in ay jirkii joogto insulin laakiin aanu jirkii ka jawaab celinayn ama response aanu ka bixinayn insulinti oo loo yaqaano insulin resistant. insulinta waxa sameeya ganaca oo ah xubin ku taala caloosha gadaasheeda. ganaca waxa ku jira unugyo, laba unug ayaa ku jira. unug ka mid waxa loo yaqaanaa islet cell. islet cell waxa uu sameeyaa insulinta, kadibna wuxuu ku daraa dhiigga si ay u yarayso sokorta badan ee ku jirta dhiigga. waqti dheer haddii cudurkan uu sii raago wuxuu keeni karaa caqabado ay ka mid yihiin cudurrada wadnaha sida wadnaha oo istaaga, kaliyaha oo shaqada gaba, indhala-aan, dhibaatooyin dhanka ilkaha ah, farxad darro, dhibaatooyin dhanka uurka ah haddii hooyada xaamiladii uu ku dhaco sonkorow. noocyada cudurka macaanka. cudurkan waxa uu leeyahay 3 nooc oo kala ah. nooca koowaad waxaa sababa in jirku uusan helin insulin ku filan, taasoo ka timid burbur ku yimaada unugyadii soo saari lahaa. waxaana inta badan uu ku dhacaa carruurta iyo dadka da'da yar. waxaa loo yaqaanaa insulin dependent diabetes baa loo yaqaan, oo jirkii wuxuu la dagaalamaya insulintii dabeedna total wuxuu meesha ka saaraya insulintii jirka ku jirtay ama uu soo saari lahaa beer aan idhaahdo cafwan uu soo saari lahaa ganac. sababaha ugu badan ee qofku uu kugu dhici karo cudurku waxay noqon kartaa kuwa dhaxal ah oo kaga yimid waalidkiisoo hore u qabay cudurka macaanka. sababaha la xidhiidha deegaanka sida cunnada uu qofku cunayo iyo inuu burbur ku yimaado unugyadii soo saari lahaa insulinta. islet cells of the pancreas. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa type 2 diabetes. waa nooca ugu badan. nooca waxa keena sababaha ay ka mid yihiin jirka oo aan ka jawaabin insulin, ama inuusan helin insulin ku filan, ama unugyada beerka oo aan si wanaagsan u isticmaalin insulintii la soo saaray. nooca labaad ee cudurka macaanku wuxuu ku dhacaa dadka da'da dhexaadka ah, dadka duqoobay iyo sidoo kale dadka aadka u cayila. uma badna inuu ku dhaco dadka yaryar haddii aysan ahayn kuwo cayilkoodu xad dhaafiya. sababaha ugu badan ee noocan lala xiriiriyo waxaa ka mid ah cayilka saa'idka ah, jimicsi la'aanta, jirka oo insulin si habboon u adeegsan, iyo beerka oo soo saara sonkor aad u badan taasoo keenta in dhiigga ay sonkor badan ay ka buuxsanto. waa kuwee dadka halista ugu jira xanuunkan? dadka da'doodu tahay 45 sano iyo wixii ka badan, dadka cayilka xad-dhaafka ah, dadka aan jimicsiga samayn, dadka cadaadiska dhiigoodu ka sarreeyo inta caadiga ah qiyaas ahaan 140 ilaa 90, dadka qaba cudurrada wadnaha. nooca saddexaad ee macaanku waxa uu ku dhacaa haweenka uurka leh oo keliya, waxaana loo yaqaanaa gestational diabetes, waxaana sababa isbeddello ku yimaada hormoonnada xilliga uurka. waa maxay doorka insulintu ay jirka ku leedahay ama shaqada insulintu ay jirka ka qabato? insulintu waxay caawisaa murqaha beerka iyo xaydha iyadoo soo nuugta sokorta dhiigga ku jirta si ay hoos ugu dhigto heerka sokorta dhiigga. waxay kicisaa murqaha iyo beerka si ay u keydiyaan sokorta dheeraadka ee uusan jirku u baahnayn. waxa ay yaraysaa sokorta beerka uu soo saaray. calaamadaha uu xanuunkani caanka ku yahay waxaa ka mid ah inuu qofku dareemo oon badan, inuu qofku yeesho sidoo kale kaadi badan, inuu qofku sidoo kale dareemo gaajo badan. oon badan, kaadi badan iyo gaajo badan. daal badan inuu dareemo, inuu meelaha dhaawac uu ka soo gaadho aanay si fudud aanay u bogsan, aragga oo daciifa, miisaanka qofka oo yaraada, iyo caabuq ama infection soo noqnoqda. daawooyinka loo adeegsado cudurka macaanka. daawooyinka ujeeddada ugu weyn ee loo adeegsanaya waxay tahay in lagu daweeyo calaamadaha ay ka mid yihiin kaadida badan, gaajada, miisaanka yaraanaya, caqabadaha ka iman kara haddii cudurkan uu sii daba dheeraado. dawooyinka afka laga qaato ee cudurkan lagu daweeyo waxaa loo qaybiyaa 5 qaybood oo kala ah: sulfonamide, maglitinides, biguanides, thiazolidinediones iyo alpha glucosidase inhibitors, oo mid walbaaba mechanism of action gaar ay leedahay. marka xanuunkan sidoo kale haddii dawooyinka waa dawooyinka inta badan afka laga qaato, laakiin dawooyin waxaa jira iyaguna loo yaqaano insulin oo ah beddelkii insulintii jirka. waana xalka u dambeeya qofka lagu daweeyo xanuunkan macaanka qaba. marka mar walba inaad ka digtoonaato weeyaan, xanuunkan waa xanuun aan laga bogsan karin laakiin lala tacaali karo. saaxiib la noqo xanuunkan haddii uu kugu dhacay
oo yaanu kaa dhigin qof murugaysan. wixii su'aaleed hayso noogu soo gudbi qaybta kumanka. aad baad mahadsantahay.